بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا لها وندن سلام يا ملك استوديو دافيه ذيك سجنتهين مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad leh marka xigtana idinka ayaan idin mahadnaqayaa sidii caadadoodu ahayd barnaamijka maanta miiska inoo saaran insha Allah bidmillahi karim waa barnaamij ka duwan barnaamijyada hore oo aan ahayn qisas laakiin walaal u shaqeysa bulshada Soomaaliyeed ayaa wax qabadkeeda halkan maaragtay inoogu soo gudbinaysa insha Allah bidmillah walaashaas intaynan u gudbin waxaan idinka codsanaynaa subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ta iyo comment caafimaad qaba ayaan idinka codsanaynaa bidmillahi karim walaasha ayaan ku soo dhaweynayaa iyada inoo sharaxi doonta waxay qabato iyo maxay ahaydeen waxay qabato iyo halka laga helo iyo magaceeda iyo afaaraheeda oo dhan insha Allah bidmillahi karim waanan idin hayaa wax weyn baan idin ogahay yaa ila socda kusoo dhawow walaal macaanay waan ku salaamayaa kusoo dhawow luul YouTube mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba Google baa ku taala xariira welcome adiga iyo walaalaha kula midkaaba ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام السلام يا عشلول أدري أمة الصوماليات دونكم شيء على ذاك الجوان وحنا يا الله وشفتيو وندوه هاي وأنا كاغمات كلمة أهلا وسهلا وإياك ولا لما أنا قلنا صدق كله ونكسر دويننا waxaan rabaa in aad bal tuma tahay ما شاء الله تبارك الله. أنا كما قاعد وحالي إذا أم الزبير وحان كالسعداء أمهات الجنة وحان أمامك وسرية وحان هاي قبل اسكو أبابولا أمد الصوماليات تلقى المدام ونغبر بريد عن صورة قحمي قصة بدن كيسي ماشا وكاقضم كارو وعيقلين يعلمي هي البروغرام كان بتسن قبلها إلى اسكو هشتان مدام قفل إن قلت هوستان وقولي له كان شرحرني اللي اسكو إيمان كرين إن تليفون كونفرنس كودني مادنو أمهات الجنة لما قاعد حني محي إدمام المجتمع علينا هاي ماشي أسأل كبر القرآن كأحاديث صلاةها برنامج عن كسودين أو جعيلك قفل بجعيلك يسون وسط جعيلك مسير كوكلة الإصلاح بين الناس محي إذا قبلها وإحنا قري وإحنا أخذنا فترة الكبرى محي هذه نمشي وقنا وإحنا وكل انتهى ليه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك إنه أوجد قال له موضوع ما أنت مسكين وصارن جارحان ولا الإشاء وحقبت كذا إن شاء الله برنامج كنا ونكسو جود بندونا وحفر بدن بقبتها أنكو يلا بيا صدق يا أفرتونا هين بالشدة الصومالياتنا أنت أودي ما شاء الله تبارك الله إلهي خيرك سي ويكفيسي ويكفعل قادتي هذا برنامج كمان أنت مسكين وصارن ولا شن يجروب كذا للشقية حبلها أمهات الجنة يدا ويدو أي كابة وتهاي أمد maamulka ugu sareeya ay tahay waxay sameeyaan dadka ay isu guuriyaan aan hadalka ku soo dhawaaday marka ay isu guuriyaan bulshada dawiilka iyo gabadha iyo arintaasan maanta miska inoo saaran oo walaashu inoo faahfaahinaysa ما شاء الله تبارك الله. أنا أمهات هاي وحقبت كهرت قفك ووحو ودشو الله سبحانه وتعالى أجرك سكون codkana kor yar qad walaalahay qof kasta oo nool waxaa jirkiisa ilaahay subxaanahu watacaala ku beera waxqabad صح waxqabadkaas wuxuu yahay qof waa engineer qof waa doctor qof waa lawyer qof waa maxay ahayd humanitarian my job humanitarian waa shaqadayda waxaa u samaysanaa aniga oo alla iigu talagalay dadka caawina oo samaysanahay marka special qaybta hadda annaga aan qabanno waa noloshii oo dhan laakiin waxaan extra ku darnay oo aanan inta badan meelaha kale ka jirin qaybta guurka qaybta guurkana waxaa igu dhaliyay aniga oo misbeer ahaan waxaan ku xiranahay masaajidada waxaan arkay gabdhihii Soomaaliyeed ee qiimaha badnaa ee sharafta badnaa ee quruxda badnaa ee qaaliga ahaa ee geer bunduq laga bixin jiray ee maxay age gabdhihii loogu talagalay wada dhaafay gabadha Soomaaliyeed waa gabar xishood badan intay meel tagto ma dhihi karto waa guursanaa masaajidada inay iska diiwaangeliyaan ay bilaabeen masaajidada guddiga ugu sarreeyo ee mar walba shiran ka mid ahaan jiray waxaan arkay gabdhaha sida loola dhaqmaayo waxyaabaha aan u qalmin ee lagula kacayo sidaas ayaa waxay ugu dhalisay in aniga gooni u baxo because ninka macnaha mas-uulka ugu sarreeya masjidka oo macnaha oo ahaa wadamada aan Soomaaliya aan ahayn wadamadan kale marka habeenada kamid ayadoo la shiray aad uu arood wuxuu yiri waa ku wareeray maalin kasta isdishaan isku dhaqan ma tihiin
maxay diinta dada qaar xataa gadaal ka soo galay oo macnaha aanu ku dhalanin islaamkiina wuu yaryahay dilkiina igu batay habeen walba dacwaan qaadaa marka waxaan idinka rabaa qolo walba waddankeeda ha guursato markuu meesha ka dhahay meeshas waxaa igu soo baxay jaanis ah inaan dhaho qofka gabar kasta oo soomaali ah magaciiga waa kana waana diiwaan gashnaa midribka aniga macnaha caawa laga bilaabo xabka u dhiganayo inaan wixii aan u qaban karo aan la kaashto waxgaradka soomaaliyeed sidii aad ku diiwaan geliyey gabdhihii macnaha oo laysoo siiyey nambarkayga waxaan ku bilaabay tartiib iyo tijaabo kadibna maasha allah tabaaraka allah way iska bulaashay waxaan sameeyey masaajidka wiilasha ku xiran ayaga laftarkooda aan la fariistay aan dhahay walaalayaalow barbaran community isku keena gabdhihii macnaha eeshiyaanka iyo wadamada kale way leeyihiin waxaan wax laga xishoobda ma aha dad dhan aan macnaha maanta naga milmaayo wadamada aan joognay ku milmaayaan dhibaato fara badanaa jirto gabdho badan oo ejkooda waxaa arkaysaa 50 oo gabdhaha arkay maasha allah qurux aan ku yareen cilmi aan ku yareen sharaf aan ku yareen hadda gabdhihii waxaa waay guryaha ku jiraan markay wixii barteen community dadka isu keeno iyo malihin marka way dayacmeen dadkeedni annaga waddankeeni maadaama aan kasoo tagno way dayacmeen sidaasaa waxaa igu kaliftay qaybta aniga igaga aadan inaan ku istaago wax badanaan ku guulaystanay waana ku najaxnay arrintii aan tartiib ku bilaabay iyo dhuudhuub hadda maasha allah way balaaratay ilaa iyo adduunka maasha allah tabaarakallah sidaasaa kuu kaliftay waxaa tiri yacni dhibaatadaas guurka hablaha soomaaliyeed ee nimanka ajaanibka guursanayaan iyo dadka kaleba kala dee wadamada ah problemkii kasoo noqday oo shiikhii masaajidka uu ka dacwo keenay baad adigu halkii ka qaadatay intii qaybtii soomaalida sax markaa aad arrintii dhex gashay maxay ahayday maxaad daadaad iskugu guurisaan intay la eg tahay ma caruurta yaryar baad isu guurisaan mise nooc walba markii hore waxaan ku bilaabay gabdhaha intaan isnaqaano ama inta ku xiran gruubkeena ka hor xataa arrintan waa soo waday inaan yacni maamooyinka aan mar walba intaan farriisi sameeyo aan hooyooyinka wada hadalno aan marka la wada cashay kadib aan u sii walaalayaalow gabar walba gabar u qaangaartay ilmaheena cunto fiican waa la siiyaa dhar qurux badan waa loo xiraa laakiin waxyaabaha xaajaadkooda hoose lama weydiiyo haddii aadan cunugaada la sheekaysan aad weydiin axwaashiisa hoose cunugii qol isku xiree markaad aragtoo kale oo adigu cunugii qolka markuu ku jiro adduunka dhan oo la sheekaysanayo hooyada maka warqabto marka waxaan aragnay inaan hooyooyinka macnaha aan ka wacyigelino gabadheeda marka ay soo qaangaarayso kale inay la sheekaysato inay holidayo wadamada islaamka geyso inay wadanka geyso in walaashiid hadday ilmo dhaleen camal iyo ilmaha holiday loo wada anaga soomaalida waa ka xishoonaynaa waan milano runtii aadan macnaha uga dhiidiyay sababto waxaan rabaa wiilasha soomaaliyeed waa dad maasha allah tabaaraka allah abtirsi leh ina hebel la dhahayo oo maanta meel aa u raacato aniga hadda 1992 maran joogay waddanka Sweden gabar waxaa jirtay guursatay nin Iiraan ah laba wiil u dhashay labadii wiil markay u dhashay gabadhii wuxuu dhahay waddankeenaan u aadaynaa holiday waddankii markii la aaday carruurtii uu kasoo reebtay wuxuu yidhi laba mid dooro inaad adoo nabad qabto aad diyaaradda raacdo iyo inaad inta lagu jarjaro hilibkaada mukulaalaha loo tuurtuuro yani bas gabadhi waxay tiri go-aan kale amuu jiraa maya ayadoo sidaas diyaaradda kasoo raacday kasoo degata waddankii marka gabdho badan oo saasoo kale loo galan arkay oo wadamadan carabta oo kale marka waxaan ka wacyigelinaa marka inay gabadhaba marka hore intaysan guurka gaarinbo meelo loo sii iftiimiyo farta loogu taaga yani inta isfahmi kartoo kale inay ilmaha ishaystaan haddii ilmaha annaga aan leenaha community iidahoo kale isku keensana dhalinyaradii meeshaas gabdhaha gooni wiilasha gooni marna hool weyn la wada qabto oo meel isugu yimaado annaga soomaalida dhibaatadan haysato waxay tahay wixii xaqa ah baan ka xishoonaynaa waa isla weynahay dad waxaan wadanaa wada caqli badan kulligan wada caqli kulligan sheek kulligan macnaa wax walba waa faan badanna soomaalida maadaama aan qurba joogno faan iyo macnaa wax aan loo joogin ma aha waxaan taagannahay waa dabargo-oyna waa baaba-oyna waa milmoyna marka soomaali awal waxay dad isku midab maxay isku diin isku luqad hadda maanta waxaa la helaa soomaali kala diin kala midab because adduunkaan dhex galna marka intii aan aymi karno aan bal isleenahay wacyigelinta hala badiyo
still hadda fundraising iyo hore la rabaa hadda hadeen shaqaan la hadlay waxaan qabanqaabinayaa fasax kasta inaan intaan diiwaan gelino maamooyinka ilmahooda soo qaangaarayaan oo kale inaan meel iskugu nimaadno eeshiyaanka bal marka hore inaan tusino eeshiyaanka way dhigtaan bil kasto xaafaday ku dhigtaan London waa ka qayb galaan way waclaan markaasoo kale waa soo maseera dadka dadka aan ka dhashay siday u hurdaan ilmihii cuntaa laga dharjiyey dhar qurux badan loo xiray iskuulka ay joogaan wiilashii gabdhihii boyfriend girlfriend anaga inay xaaraan yihiin u sheegnay dhinacaasna laguma soo jeeda yani oo ku baraarugsan waalidiintii waxaa la leeyahay cunugu markuu dhaho hooyo gabara israbna ama gabadha ay dhahan wiil israbna iyaa adaaba wax barato iskuulka soo dhamee maxay eed ma adaaba shaqaysataba isku tasho cunugaas markaas waxaa dhici karta xilliga iskuulka loo diray inuu xaaraan ku dhaco gabdhahan cadaanka ah ilmaha maxay eed banaanka intay ku farciyaaraan gurigooda ku leexsanaan gabdhaheena Soomaalidu waa gabdha qaal ah oo diin leh oo in la doonto meher loo dhigo aroos waay laakiin dadkan ma ahan waxaa arkay boqolaal wiilal Soomaaliyeed oo ilmo loo leeyahay maanta oo waalidkood mar dambe ay ku baraarugayaan bas ilmihii cunto iyo dhar kaliya uma baahno waxay u baahan yihiin nolol kale in lagala sheekeeyo loo sii diyaariyo in looga sii sheekeeyo نعم بالله ما شاء الله تبارك الله إلهي هيدن لقبتها هيدن فضوديو single mother ta iyo single father ka iyaga ka waran hadii ay kula soo hadlaan ay ku yiraahdaan de gurdoon baanu nahay ma sha Allah tabarakallah ayada meel ugu macnay maraysa kullinka soo balhooyo waxana oo qaali ah waaye hooyooyin ma sha Allah tabarakallah adduunka ka tilmaamo waaye hooyooyin very strong waaye adduunka lagama helo hooyo Soomaaliyeed intay qaban karto way qaban karto hooyo Soomaaliyeed ilaaha ugu talagalay ma sha Allah tabarakallah oo dhahaya waxa way hooyooyinka anagoo dumar u joogno raga meel walba ku leeyahay hadda ragga waxa sameeyaa culimada qayb ka mid ah maxay masaajidada qayb ka mid ah ku xiranahay maxay wiilasha dhinacooda iga imaada ragga ayaga soo tijaabiyo shuruudaa jiro marka la isqaadanayo ilaahayna wuxuu noogu gargaaray maba isku daahaanba because qofka CV la weydiina gabadha waxaa la weydiina magacka hore magaceeda marka labaad diinteeda iyo akhlaaqdeeda marka saddexaad caafimaadkeeda marka afraad dooqa ee rabto mitirkoo kale gabadha macnaha 180 hadday tahoo kale 180 wixii ka korreeya ilaa 90 qaadan kartaa 175 hadday tahay macnaa mitirka inta badan aan ku bixinaa iyo qofka inuu warqad caafimaad keeno maasha allah tabaarakallah maasha allah tabaarakallah maad ku xidhan markaa qof qabiil Soomaali baynu hooynu qabiil wareysanahay qabiil ahaan ma la isku xidho qolo qofka qoladaasan doonaya qof idin ku yiraahdo ma idin la soo hadlay wali markii la qoray qofka qabiilkiisa uu ku jiraa marka weligay intaan hadda hawshan wada saddex qof kaliya igu dhahday qabiilka noocaasaan rabaa reason-kan way ii raaciyeen waxay dheen anaga gobolkaasaan ka soo jeednaa gobolkaasaan rabaa inaan u guuro qof gobolkaas igala soo jeedaan rabaa waana loo helay because qof walba wuxuu rabo dalban karaa because muhiimkeen anaga wuxuu yahay inay Soomaali isu keen helaan ما شاء الله تبارك الله دأدي هو وينيد إذن صو مرتا منو شيء كرتا أد سجور سام ولا بتكون جلستان دأدي هو وينيد ومجورين لكن هو صوت البعض هو 74 وها from ودمنا يوروب ودن كم مشي جاي أغنية نتكرر صح ما يلا مبشر هذا كان لك مشي كمان ودمتني أفر إنه هو هنا ما ممكن يصير hooyo 8 jir ayaa idin soo hadashay age number ma hada meeshan waa number age number aqimad qabo qofkiis hada wadankeena markii la joogay gabadha markii 40 soo gaartay 42 qof weyn ay dhigi jireen hada ma sha Allah tabarakallah dad macnaha ma sha Allah age code yani 60 oo ka sii weyn 70 ku dhow oo wili still young ah meeshan jiimaada asmakada أنا قفكي ميزو ليه وقتي هم الكمات وقوني لكن إيش نمبر ويان ما شاء الله مركز 60 أيديو 74 قضية 74 أيام ماما 60 أيديو بعدين صاد البضيع يعني سؤال بالأجري وينها وينها رد 65 وأقول لنا سجنة ماما أو حاول إن 55 أو تمشي وتبقى وذوين كم وهذا المتخانة قفك نبي لكن تلو وحير قفك إني كل جد كل شيء فتماها
hooyooyinkeena waa hooyooyin xishood badan gabadhooda markay guursato ama wiilkooda uu guursado guriga lama degaan way xishood badan yihiin waxay degan yihiin waxay rabaan meel uu dhan marka maamooyinkaas oo kale ani masjidkan ku xiranahay maamo kasta haddii eeskeeda loo hela oo maamooyinka faraha ilaa loo wada saaro maasha allah insha allah tabaaraka allah shaqo culus baad haysaa shaqo culus baad haysaa ilaahay idinku guuleeyo maasha allah tabaaraka allah inta dadka isu guurinayseen marka intaanan taa u gudbin su-aasha intaanan u gudbin maxay ahayday gabdhaha marka ayaad ma laga bixiyaa sidee baa looga bixiyaa wax mise waa qof walba wuxuu hayuunba awoodaa mise waxaa jira dee inaad la gorgortaan idinkii maadaama aad isu keenaysaan ood leedihiin dee maxay ahayday intaasaad bixinaysaa gabadhan waxaasay u qalanta halkaa bal ka waran xagga kharashiyaadka iyo wixii dee layska bixin jiray qarashka wallahi maasha allah tabaaraka allah muhiimka diinta waa isfahamka laakiin annaga hadda ilaahay wuxuu noogu guuleeyey dadka badana ragga way wada shaqaystaan gabdhahan waxa way wada barteen kulli education inta badan waaye jaamacada kaseen gabadhuna way xishootaa hooyadeed ama walaashiina soo qorto way xishoodaan laakiin hadda way kusoo baraarugeen weliba aniga markaan waa la hadla waxaan u sheegaa gabar qiimo badanaa tahay kalaab iyo meelaha shiishada iyo matagtaan guryihiina joogtaan sidaas daraaddeed ma lihin system iyo kulan meel aan kuwada kulanno oo isku xira ma lihin sidaas daraaddeed maadaama aan maamooyin nahay inaan dadkeeni dabargo-a ka ilaalino iyo milanka ay ku socdaan marka waa qancinaa arrintoodana waa sakareed qofka waa mamnuuc magaciisa in la sheego xataa arooskood haddii na laga cazimo xataa anaga dadkaasaan ka midnaa absolutely maasha allah tabaaraka allah waa si wanaagsan wax isa soo furay weli ma haysaan hal wiil iyo hal gabar oo xoogaa gobol ahaa oo markii hore wiilka gabadha gobol uu ku guursaday kadib uu guursaday intay la fududeed oo marka hore la bilka camalay ku noqotay kadib waxay isku qabteen yani isku imaatanka maadaama isagana uu london degenaysanayo soo guur iyo soo guuray camal kadibna alafkaa meesha ku dhammaaday kadibna labadooda haddana waa la kala habeeyey maasha allah alafkoodi kala helay maasha allah tabaaraka allah wax caruura dhalay oo guurkoodii maaragtay dee rasmi noqday isaga iyada ma haysaan waa badan yihiin dugsi quraanay ba aadanay iskoole ubadkii laga dhalay guurkaad su guuriseen kii ugu dambeeyey hadda daaradka duruuf waa macnaha grup ahaan xataa ilmaha beebiyada xataa waa laysoo daraa hadda cunuga ugu dambeeya kal wiilkayga lagu sameeyey maasha allah annagana samaguurisaan geynay maasha allah tabaaraka allah marka ubadkiiba aad dadkii aad isku guuriseen ubadkoodii baaba yaacaya oo iskuullada iyo qur-aanka dhigtaa والله خطر باتين ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك عليه وسي إن كل يبقى شروطه هنا والدول ويدينية شروطها لسكو حرايو إن وهندسة هذا قرح بدن قرشة هذا قرح بدن ونكسر رنهانتي والله ويان أنا جوان سود ويني بقول كيف بقول إن رنهانتي أنا جو حيلا صاح الله ويلل بيلا صاح الله حبلا يلا صاح الله إن وحني دوني يعني ده يدد مارتي لما ده هو حلال هو ضد صومالي هو مارتي ده أي dee calafka wada wadaagaan oo nolosha wada wadaagaan alxamdulilah anigoo meelaan ula kaca la ilaahay baa iska soo keen beegay halkaasaan markaa telefoonka walaasha waan soo dhigayaa telefoonkaasaad kala hadlaysaan qofkii guur maadaama aan u istaagay inaan ummadda wax taro umu zubayr sax arrintan arrin ka weynaan barba inaan sii sameeyo website ay soomaalida ku kulantaan barajeyna insha allahu tacaala dadkayga intaan badbaadsan karo inaan badbaadsado sax allahuma baarik caleyh telefoonkeeda iyo magaceedaba walaasha halkaasaan idinku soo qorayaa qofkii guurdoona wula hadli karaa qofkii kale raba inuu caawimo kala deegeysto oo dee bulshada soomaaliyeed caawiyana way u furan tahay wula hadli karaa laakiin imika ahaan qofkii guura xalaala raba halkaasoo kala hadlaya telefoonka walaasha waan soo dhigi doonaa bidmillaahi baari wasabkeeda halkaasaad aad kala xidhiidhi doontaan bidmillaahi kariim taasi waa taa waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay wax wanaagsan weeyaan wax qabad qiimale weeyaan run ahaantii aad u qiimo badan weeyaan maasha allah tabaarak allah haye walaal maxaad markaa inoogu soo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeynaa hooyo kasta oo soomaaliyeed waxaan u dirayaa fariin ah ilmuhu uma baahna cunto iyo dhar keliya waxay u baahan yihiin xaajaadkooda hooso anaga maadaama aan wadankeena dhaqanka kusoo kornay qorrax jirtay iskuul iyo la carari jiray
oo banaanka u badnayn ciyaar kadibna anagoo daalan guriga soo geli jirnay ilmahan ciyaartoodu way yar tahay caafimaadkooda maasha allah tabaarakallah waa lala socdaa waxay u baahan yihiin xaajaadkooda hoose marka hooyo walbo inay caruurta ka warqabto waxa guriga ka dhacay tusaale waxaan ku siinaa ayaan dhexdaas waxaa dhacday wiil inuu soo dacwooday uu dhahay maxay ahayd waxaan hooyaday ku iri waxaan rabaa in gabaraan isbaranay markaasay igu tiri goormaa gaartay gabar goormay gaartay inaa shaqaysatid isku tasho markay sidaas tiri wiilkii macnaha uu iska laqay hooyadii singalay ahayd marka wuxuu yiri hooyadii guursatay marka anna way ii diida ayada way guursatay ciwaanka ka dhiga marka inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun subhanallah waa ciyaal wuxuu u baahan yahay cunuga xataa in markaas la dhahay ku qurux badneed hooyo qofkaa keensatay macnaha waa wax fiican waaye wax ilaahay ka raali yahay waaye marka insha allah aniguna waa ku caawina waa ku sporgarayna adigana allah tacaala diinta iyo mas-uuliyadda iyo kooshaan ku siina waana isku diyaarinayna inaan niyadda loo dhisay ilmihii inaan niyadda laga dilin oo yimaado aad u diiday gabdho badan oo waxaan fariin u diraa hooyooyinka soomaaliyeed wiilkeeda wuxuu u keensanaa gabar soomaaliyeed markaasay leedahay reer hebel ama hiblaayo gabadheeda isma galno gabaray gabar heblaayo ama wiil heblaayo waa ina hebel soomaalina cirif kuu tago haddaa magaciisa saddexan sheegto waa la helaa laakiin haddii adduunkan uu cunugaan kaa dhex galo intee kasoo dhex qabaneen imisa intaad ajnabi guursaday maxay dib dambe loo waayay imisa caruurihii lagala fakaday may qof soomaaliya ciduu dooni waxa ahaadee haddii ilaahay kuu keeno gacantaada inaad dhunkato weeyaan oo ilmahaagii kuu keeno qof soomaaliya oo dee akhlaaq wanaagsan oo diin leh oo sharaf leh oo dhaqan leh haddii ilaahay ku keeno soomaali badan baa khadka ka baxsane hadduu kuu keeno waa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hooyooyinkan waxaan u diraa fariin inaysan wiilasha qarash fara badan ku xirin hadduu wiilka diin leeyahay maxay ahaday waalidkiisna la yaqaan uu u keensado inay labada waalid ka shaqeeyaan sidii la isu guurin lahaa inaan hadhow laga shaqeyn labada waalid markay isku xumaadaan labadii la isu guuri inaan la kala kaxaysan oo la dhihin ana waa wate labadii isguursato ha isku madax banaanaadaan soomaalida qurbaha dhibaatada haysato waxay tahay hooyo iyo aabe markay isguursadaan aabihina culays fara badanaa dhinaca faamiligiisa ka haysto hooyadina dhinaca kale faamil ka haysto marka ayaga dhanaa wada biyihii ah ilmahooda uma madax banaano marka sidaas daraaddeed dhaqaalihii waa inay labada dhinac ka fikiraan reero badanaa ku burburay oo aysan qaadi karin oo kale haddana ilmihii la rabay in xaajaadka hoose lagala sheekaysto oo lala saaxiibo ilmihii qolkii iskaga xareedeen moobile iska qaateenbo saaxiibbay yeesheenbo cunugaadin hadhow ajnabigu badanka kuusoo istaajiya ama wuuba la dhuuntaba wuu la gambiyey intay keeni badan la sheekaysta ilmaha holidayaha loo wado ha lagu daro cimro culumada oo hadda reer london oo kale 2 week oo la aada cimraa jirto cunuga markuuba 14 soo dhaafo aad ha loola saaxiibo baahiyada gaarkeena ha lala socdo waa milanay isdaba qabana soomaaliyeed hooyo kastoy macnaha guriga adaa maasha allah tiirka guriga ah insha allahu tacaala ilmahaaga intay nabada jirto arrin waxaa li haddii hadhowtii oo wax yimaadaan ajnabi albaabka laguu soo istaajiyo waxba ma ka qaban kartid inaad ku raacdid waayo haddii aadan ku raacinna cunugaaga dibdab uma arkaysid marka inaan ilmihii u caqli celino madax adeega aan joojino qaylada aan joojino abaarka aan joojino aan bilaawno maxay ahayd kutubkeena macaan waxa uu nafarayo oo ah nasteexo iyo doola cadeyn iyo inaa ilmihii macnaha inaanan dhihin soo shaqaysa adiga soo yar hore macaan waan ku garab taagana gabar maa ii keenta waaw maasha allah aan dhiisa gelina ilmaha insha allah unta gelina ilmaha uma baahna maasha allah tabaaraka allah jisaaka allahu khayr walaal aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay ha ka abaalmariyo hawl culus baad haysa oo loo baahan yahay ilaaha weyne waaxidka ha ka abaalmariyo insha allah biidmillaahi kariim sidaan idin sheegay walaasha telefoonkeeda waan soo qorayaa haddii ilaahay ka dhigo barnaamijkana kuma ekaan doono insha allah wax qabad fara badan bay samaysaa walaashu oo dalkii hooyo dadkii joogay caawisa insha allah waan soo casumi doonaa halkana waad kala xiriiri doontaan qofkii calaf doona insha allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaad isku baraadhaan halkaa dadka iska guursada hadee bashbash iyo barwaaqiyo ubad iyo caano iyo maxaa la odhan jiray wiil iyo caano gabadh iyo caano khayr qaba waxaan rabaa caasho hooyooyinkii aabbaha soomaaliyeed inay u midoobaan caruurtooda sida ay ku badbaadin lahaayeen ku samata bixi lahaayeen inaysan ayagu isfiirsan inaysan ayagu tartamin
inay haddii calafka xataa hadduu dhamaado ilmaha lagu saaxiibo because cunuga hooyadiisna wuu rabaa aabihiisna wuu rabaa wax kasta uya wuu rabaa marka hadduu aabbaha xataa reer kala yeeshtay aabayaasha soomaaliyeed waxaan ka codsanaa ilmaha inay cadowga ka ilaashtaan inaan farfar lagu taagin macnaha jacaylkii iyo shalay laisku soo guursada hala fiiriyo hadduu xataa calafka dhamaado istiil hala sii saaxiibo annaga sidaan rabna markaan weyna xididada isku siibayna ma naqaano dabeecaddas meelaan ka keenno haddii dhankaan lagu heshiiyo waay dhankii kana lagu heshiiyo please waa milane aantaan qabana insha allah ilmahana ha loo guuriyo holiday hala geeyo cunugaaga markuu qofkuu keensadane soomaalida hadha alxamdulilah sharaatu shukri duko ilmahana niyada u dhisno aana macnaha u tabaabashaysana markay 16 inaan usii guurino biidni illahi karim ilaahay waxaan salaamaa dhammaan reer ummahatul janna maamulkooda golaha sare mujtamaca kulligii waxaa leeyahay jasidin janna allah ka dhigo ummadda shaqada u haysaan intii maxay ahaatay codkayga gaaro waxaan ka codsanaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waa yaanan milmin macnaha qof walba haddii alla kuu qoro ajnabi macnaha wuxuu alla qoro ma diidina laakiin intaan dadaali karno macnaa annagaa isku filan soomaali waa god ilaahay idin xafida kulligiin waad mahadsan tahay jasaaka allahu khayr waa maqlaysaan dardaaranka walaasha ilaahay aynu ugu daweynaynu qaadano intaan mar dambe hawada ku kulmi doono dhammaantiin iyo dhammaantayaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh